madaxweyne Ibrahim Traore madaxweynaha dalka Burkina Faso waxa uu wajahayaa qatar ay wali u maleegayaan reer galbeedka maanta sirdoonka wadankaasi ciidamada amniga ayaa ka hortagay howlgal laga soo qorsheeyay dhinaca dalka Benin oo la doonayay in Ibrahim Traore talada looga tuuro iyadoo gawaari waaweyn lagu soo dhaxqariyay rag hubsita ujeedadana ay ahayd caasimada Wagadugu inay gaaraan haddaba sidee fashilkaasi u dhacay yaa ka dambeeya arrintan Ibrahim Traore suuragal ma tahay in shacabka kalsoonida uu siiyo ay sii jirto reer galbeedku ma ka faa'iideysan karaan in dadkaasi ay kala furfuraan marka la eego isbedelka dalka Burkina Faso ka dhacay dhinaca kale waxaan eegi doonaa la yaab dunida ay hadal hayso iyo qaar ka mid ah warbaahinta baraha bulshada ee qaaradda Afrika ee ku saabsanaa socdaalkii lama filaanka ahaa ee uu ku gaaray dalka Namibia xilli dunida wadankaasi Namibia ay cadaadis xoog la ku hayeen Ibrahim Traore ma waxa uu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha qaaradda Afrika wadamo badan oo Afrikaana suuragal ma tahay tilaabooyinkiisa inay ku daydaan sida ay ku warameen ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso dalka Namibia ayaa reer galbeedku waxay ka soo qorsheeyeen isku day afgambi oo la doonayay in talada looga tuuro madaxweynaha dhalinyarada ah ee guud ahaanba ka yaabiya qaaradda ee Ibrahim Traore dalka Namibia ayaa waxaa ka soo galay gawaari shixnadan oo la sheegay inay wadaan gargaar raashin oo loogu talagalay dalka Burkina Faso xilli dawladda aan lagu wargelin wax gargaar ah inuu imaanayo iyo sidoo kale in la gacan siinayo dad ka soo jeeda jamhuuriyadaasi oo dhibaatooyin ay hayeen isla markaana u baahnaa in gargaar la siiyo dalkaasi arrintani waxa lagu dhaqaaqayaa iyadoo hay'adaha samafalka ee reer galbeedka iyo kuwa qaramada midoobay aysan hadda wada shaqayn buuxda oo wanaagsan aysan la lahayn isbedelka dawladda ku timid ee dalkaasi ka hana qaaday arrintan ciidamada ayay ku dhalisay shaki waxaana durbaba la bilaabay gawaaridii shaxnada siday shareeca kor looga soo degay in baaritaan lagu sameeyo laakiin arrin la yaab iyo makaag leh ayaa dhacday markii ay ka soo baxeen rag hub watay isla markaana gaadiidkaasi lagu soo raray rasaas aad u fara badan iyo qoryo ciidamada ayaa gacanta ku dhigay waxaana ay bilaabeen baaritaanna hadda inay ku hayaan dadka gawaarida la soo saaray qaarkood waxay ka soo jeedeen dalka Burkina Faso halka kuwa kalena ay ahaayeen dadyo kale oo Afrikaan ah xitaa waxa ku jira Carab iyo dad Hindi ah oo qaaradda Asia ka soo jeeday oo hanaan calooshoodu shaqaystayaal loo soo kireystay ujeedadu waxay ahayd rajada iyo nalka ka daaran dalka Burkina Faso ee ifkiisa uu ka baxaya caasimada Wagadugu in ay meesha ka saaraan isla markaana ay afgambiyaan dawladda ku joogta rabitaanka shacabka dhalinyarada ciidanka nabad sugidda iyo hooyooyinku ay garab taagan yihiin waxa ay doonayeen inay meesha ka saaraan rajada wadankaasi iyo waliba hiraalka mustaqbalka ee ku dhisan isku tashiga dawladda militariga ee dhalinyaradu ay garwadeenka ka yihiin ayay markan doonayeen in ay majaxaabiyaan laakiin waxa u muuqata Traore inuu dhistay kalsoonida shacabkiisa iyo waliba guulaha ciidamadiisu ay gaarayaan inay tahay mid nin kasta oo dhalinyaro ah ama gabar kasta oo wadankaasi joogta ka dhigi karaya rajo isku aragto in madaxweynaha iyo guusha wadankaasi uu gaarayo ay qayb ka noqon karayso hadda isku daygii ugu dambeeyay oo noqonaya mid ka mid ah isku dayadii ugu halista badnaa ee reer galbeedku ay soo maleegaan ayaa la fashiliyay Traore waxa uu hore u diiday rabitaanka reer galbeedka waxa uu ka baxay heshiisyadii macaadinta lagu la jiro wadankiisa dahabkii la iska guran jiray ayuu shirkadihii ka shaqeynaya qarameeyay kuwa reer galbeedkana waxa uu sheegay inuu meesha ka saaro aragtidii reer galbeedka ayuu ka jeestay waxana uu wacday dhinaca bariga iyo Ruushka saaxiibka uu hadda ku dhaatana waa madaxweyne Vladimir Putin arrimahaasi waxa ay sababeen in reer galbeedku ay hadda u arkayaan mid ka mid ah kaydadkii horumarkooda in laga wareegay ee Ruushku uu ka jeediyay qaaradda Afrika isla markaana Traore marka laga yimaado isku dayo badan oo qaaradda Afrika ka dhacaya ay sii xoogaysanayaan arrintan
waa waxa ugu weyn ee caawa Afrika laga hadalhayo isla markaana aad ay uga sheekaynayaan warbaahinta adduunka ma kula tahay Traore inuu ka badbaadi karo isku dayada marba dhinac laga soo maleegayo haddii ay noqon lahayd Namibia iyo haddii ay noqon lahayd Cote d'Ivoire oo wadankaasi dacalka ku haysa reer galbeedkuna ay labadaas dhinac fadhiyaan si Traore ay meesha uga saaraan isla markaana ay dib ugu gurtaan dahabka iyo macaadinta kale ee qaniga uu ku yahay wadanka Burkina Faso haddii aan eego arinta kale ee la yaab kale ee warbaahintu ay ka sheekaynayaan madaxweyne Ibrahim Traore ayaa waxa uu fadhiyaa qolkiisa uu ka daawanayo TV-giisa lama joogaan protokolkii la shaqeynayay iyo ciidamadii sida gaarka ahaa isaga ugu qoraa markan kuma labisna dharkii ciidamada funaanadii militariga koofiyadii casayd iyo surwaalkii tuutaha ahaa sidoo kale gacmaha uguma jiraan gloveski uu aadka uga taxadirayay in gacmo sumaysan lagu salaamo maadaama ay marar kala duwan dhaceen in xitaa la isku dayo in la sumeeyo oo wiil yar loo soo dhiibay cirbad uu doonaya inuu ku mudo si loo qaarijiyo markan waxa uu daawanayaa telefishinkiisa waxa uu eegayaa balqaaradda Afrika warar cusub oo yadidiilo galiya inay ka yimaadaan iyo kuwa abuuri kara dhiilo isaga naftiisa dhibaato ku geysta aragtida Traore waxa ay ka kortay wadanka Burkina Faso waxana uu noqonayaa nin si guud uga fakaraya qaaradda Afrika isaga oo daawanaya telefishinkiisa ayaa waxa soo galay war aad uga farxiyay wadalka Namibia oo madaxweynaha gabadha ah ee gacanta ku haysa ay u sheegtay dadkeeda in shirkadihii ajnabiga ahaa ee macaadinta iyo kheyraadkeeda iska daldalanayay meesha laga saari doono arrintaasi oo si weyn u noqotay war la yaab leh oo mar kale qaaradda Afrika ka soo baxa gaar ahaan koonfurta qaaradda Afrika arrintaasi waxay dhalisay in Ibrahim Traore uu yeero pilotkiisii gaarka ahaa ee ku qaadaya diyaaradii isaga sida goonida ah ugu duuli jiray waxa uu ku yiri diyaaradda shidaal noogu shub waan ka citimaynaa waxaynu aadaynaa meel aan laga warhayn aadaya u yaabo pilotka waxana uu ku yiri mudane madaxweyne ma jiraan protocol sidoo kale ciidamadina raaci jiray